Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalkeenan waxaynu kaga hadli doonaa dunida saddexaad ma waa runbaa mise ma wax jira. In badan waxa aan isweydiin jiray hadda ka hor waa maxay macnaha looga jeedaa dunida saddexaad, waayo intii aan yaraa ereygani aad ayuu dhagahayga ugu soo noqnoqday. Qof jawaab qancisa iga siiyana ma helin, laakiin maanta waxaan ogaaday in aanay jirin dunidu iyadu ka sumadan inay tahay mid saddexaad ee uu yahay erey bixin ahdaafteeda wadatay. Erey bixintan markii u horeysay ee la bixiyey waxay ahayd 1952 markii dunidu ay kala ahayd labada qaybood ee Mareykan oo hogaaminayo dowladaha galbeedka Yurub uu isku magacaabay inay yihiin dunida koowaad, iyo Ruush oo China iyo Yurub bari hogaaminayo oo iyana lagu sheegay inay yihiin dunida labaad. Inta kale ee dunida ka soo hadha labada qolona waxaa lagu magacaabay inay yihiin dunida saddexaad. Ninka erey bixintan sameeyey waxa uu ahaa nin Mareykan ah oo lagu magacaabi jiray Alfred Sophie. Dunidan saddexaad ee la sheegaya waa dalalka ay ka soo baxaan shidaalka dunida ugu badani, waa dalalka ay taalo macdanaha dunida ugu badani, waa dalalka wax kala iibsiga ugu badan ka dhaco, waa dalalka dad ahaan dunida ugu badan. Taa waxaa ka soo horjeeda inay yihiin dalalka dunida ugu faqiirsay, inay yihiin dalalka dunida ugu dawarsiga badan, inay yihiin dalalka ugu dagaalada badan, inay yihiin dalalka dunida dhaqaale ahaan ugu liita. Malaha dhagaystuhu isku qaban maayaan labadan sifooyin ee aynu kor ku soo sheegnay, ee midina hodanimada tilmaamayso ta kalena faqrinimada tilmaamayso. Waxaan uga jeedaa dalalkan shidaalka iyo macaadiinta ay soo saaraan waa la qaataa oo wadamo kale ayaa gurta, iyagana shaqaale wax aan ahayn lama siiyo. Sidoo kale macaadiintooda waxaa lagu bedelaa hub ay iyagu isku laayaan, waana dalal badankoodu aanay weli ka bixin gumaysigii maskaxda oo aan loo ogolayn inay iskood u madax banaanaadaan. Sidaa aawadeed ayay u noqdaan wadamada ugu taajirsan haddana ugu saboolsan. Dunida saddexaad ee la sheegayaa waa dalalka aan haysanin hub culus oo ay isku daafacaan. Xuquuqda la siiyaana waa xuquuq u dhiganta magacooda, darajadooda saddexaad ee bini'aadamnimada ayay ku jiraan. Taa aawadeed ayaanay nafahooda wax qiimo ah ugu fadhiyin dowladahan waaweyn ee dunida ku kibray. Dunida saddexaad waa duni ahmiyad aad u weyn ugu fadhida dowladaha waaweyn ee kale, sida uu sheegayo madaxweynihii Mareykanka ee hore Richard, oo uu ku tilmaamay in haddii aanay dunidan saddexaad jirin, kuwa koowaad iyo labaad isku sheegayana ay baabi'i lahaayeen. Dunida saddexaad waa been lagu niyad jabinayo shucuubta ku nool dunida si aanay wax u qabsan, looguna dhaadhiciyo inaanay duni kale gaadhayn oo ay dabadhilifyo u noqdaan. Dunida saddexaad waa been ay sameeyeen reer galbeed si ay gumaysigii ay xoogga u gumaysan kari waayeen ee albaabada laga saaray ay daaqadaha ka soo noqdaan iyaga oo magac kala sita. Dunida saddexaad waa been loogu sheegayo madaxda wadamada loogu jeedo si aanay madaxdooda ugu fakirin horumar madax bannaan iyo kobac. Ugu dambeyn, waxa aynu leenahay dunida saddexaad maaha wax jira, waana erey bixinta la rabay in lagu gumaysto wadamada masaakiinta ah iyo in lagu gurto macaadiinta ay haystaan wadamadaasi. Waana erey bixin la soo mariyey warbaahinta, dadkana dhagahooda laga badiyey. Maantana aad moodo in dadku ogolaadeen una bislaadeen erey bixintan, dad badanina ay rumaysan yihiinba inay dunida saddexaad joogaan oo aanay weligood horumar gaadhin sidii Alle u qoray oo kale. Ugu dambeyntii, waxa aan kula talin lahaa qof walba oo muuqaalkan dhagaysanaya inaanu ku ekaan muuqaalkan yar ee uu sii baadho erey bixintan iyo asalkeeda. Markaas ayuu si wanaagsan u fahmi karaa waxa ay erey bixintani dabada ku hayso.